السلام الله عليكم halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah sirdoonka Soomaaliya oo shaaciyay duqeymo ay la beegsadeen al-shabaab iyo hogaamiyaashii ugu badnaa oo ay sheegtay in duqeymahaasi ay ku geeriyoodeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir degdeg iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dawladda Britain oo maanta yeelanaysa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo aan cadaan ahayn iyo al-shabaabkii ku sugnaa masaajid Cali Gaduud oo lagu soo waramayo inay halkaas iskaga carareen qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoonayad ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tamarkii ugu horeysaan soo booqato ama subscribe saarto YouTube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ka horreynay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay duqeymo ku dishay amiir ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii la beegsaday duqeymo xarumo ay ku sugnaayeen oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgallada ay iska kaashanayeen ciidamada sirdoonka qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ee ka taageeraya dhinaca korjoogteynta dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ay ciidamada dawladdu iyo diyaaradaha qumaatiga u kacay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe wasiir Al-Cadaala waxa uu sheegay in duqeymo diyaaradeed lagu burburiyay gaadiid sida uu sheegana waxa uu sheegay in qaraxyo xooggan lagu garaacay goobo al-shabaab ay ku dhumaalaysanayeen oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sida uu ku sheegay war-saxaafadeedka uu warbaahinta u aqriyay waxa ku geeriyooday duqeymahaasi ku dhawaad 100 ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo uu ku jiro hogaamiyihii gobolka Shabeellada Dhexe kaas oo la sheegay inuu muhiim u ahaa kooxda laguna magacaabi jiray horjooga Cabdullaahi Cali Caraale waxa ay sheegeen howlgallada ay ka kala dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan masaajid Cali Gaduud iyo deegaan kale oo lagu magacaabo Doodile oo dhamaantood u dhow magaalada masaajid Cali Gaduud oo maalmo ka hor ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskarabsanaya ay kula dagaalameen kooxda wasaaradda warfaafinta qaranku waxay sheegtay in al-shabaab ay dadkii ugu badnaa oo meydgeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Aadan Yabaal taasoo ka dhalatay duqeymaha la beegsaday ilaa iyo dhowr bartilmaameed ayaa loo qaybiyay howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca taasoo keentay in gabi ahaanba lagu burburiyo goobihii ugu muhiimsanaa ee ay kooxdu ku dhumaalaysanayeen waxay sidoo kale sheegeen saraakiisha iyo mas'uuliyiinta kale in ay ilaa iyo haatan ku sii raad joogaan oo ay baacsanayaan kooxaha deegaankaasi dhibaatada xooggan ku lahaa waxay sheegeen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya in beegsiga kooxdu ku soo aadayo iyadoo dawladdu ay la bajibaatay dagaalka ka dhanka kooxda ee ka sameynayso deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ciidamada dawladdu ay hareereeyeen deegaano kooxdu ay ku sugan dhanka kale tan wararka naga soo gaaraya masaajid Cali Gaduud ayaa ku waramaya in dagaalyahanada kooxda al-shabaab oo maalmihii ugu dambeysay deegaankaasi ku sugnaa ay halkaas iskaga huleeleen si deltela kadib markii uu adkaysan waayeen duqeymaha sida roobka ugu soo daadanaya ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bartilmaameedsanayaan inay fulinayaan diyaaradaha dawladda Turkiga oo taageeraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wararku waxa ay sheegayaan in kooxdu ay iskaga baxday masaajidka Cali Gaduud waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada dawladdu ay baaritaano ka wadaan deegaano hoostaga magaaladaas oo muhiim u ah habka difaaca kooxda lagana maamuli jiray isku xirka gobolada dhexe iyo magaalada Muqdisho ayay kooxdu kala kulantay jab xooggan iyo dagaallo ay ku qaadeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dawladda Turkiga ayaa duqeymihii ugu xooggan la beegsatay deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ee ay ku sugan tahay kooxda al-shabaab waxaana lagu soo waramayaa in khasaare lixaad ay gaarsiiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca gaar ahaan Bayraktar taasoo la sheegay in ay si adag u duqeysay masaajid Cali Gaduud iyadoo la beegsatay dhammaan fariisimihii kooxda
taasoo keentay inay si sahlan u burburaan difaacyadii kooxdu ay muddo badan ka diyaarsanaysay masaajid Caalguduud oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku hareeraysan magaaladaas iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay gudaha u galaan si ay u hubiyaan ammaanka iyo xasiloonida magaaladaasi. wax ka badan 2 maalmood ay halkaasi dagaal iyo duqeymo ka socdeen waxaana loo arkaa inay ahayd difaaci ugu weyn ee kooxdu ay muddo isku diyaarinaysay si ay uga hortagto duulaanka dowladda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si degdeg ah waxa uu iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada. dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa waxa iskugu imaan doonaan shir degdeg ah kaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho waxaana looga hadli doonaa xaaladaha guud ee dalka. wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in shirka uu cilaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasna 27 bishan uu ka qabsoomi doono Villa Soomaaliya. madaxweynaha ayaa casuumaad u fidiyay 5 maamul goboleed ee kala Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle waxaana ka dalbaday inay si degdeg ah ku soo galaan Muqdisho. lama shaacin muddada uu qabsoomi doono shirkan marka laga reebo wararka soo baxaya iyo tilaabada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu tilaabadan qaaday kadib markii howlgallada dalka ka socda qaarkood ay habacsanaan ku timid. wararka aynu helay ayaa sheegaya in shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada laga soo saari doono arrimo dhowr ah oo ku saabsan wada shaqeynta dowlad goboleedyada dowladda dhexe iyo xoojinta howlgallada socda. xogo waxay intaasi ku darayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxda dowlad goboleedyada u gudbin doono qorshe dhameystiran oo dalka looga saarayo Al-Shabaab. waxaa sidoo kale la sheegay in looga wada hadli doono sidii gurmud loogu fidi lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka xooggan la daaladhacaya sida arrimaha bini'aadantinimada ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xafiiska loo doortay 15 May ee sanadan 2022 waxaana doonayaa in maamul goboleedyada uu wada shaqeyntooda ka dhigo mid wanaagsan. Britain ayaa maanta yeelanaysa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo aan cadaan ahayn Rishi Sunak oo ka tirsan xisbiga loo yaqaano Conservative ee dalka Britain ayaa lagu wadaa inuu maanta noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay kadib markii Boris Johnson uu xilli dambe ka tanaasulay isku dayga soo laabashada ee la qorsheeyay. toddobaadyo kadib markuu guul daraystay isku daygii uu ku hogaamin lahaa xisbiga Toga ayaa waxaa loo rogay in uu si caadi ah u soo gaban karo isla markaasna uu ku guuleysan karo xafiiska ra'iisul wasaaraha. loolankan ayaa waxa uu yimid kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi ee muddada kooban ku jiray taliska guud ee wadankaasi looga arriminayo Liz Truss ay Khamiistii ku dhawaaqday inay iska casishay musharaxnimadii looga baahnaa inay helaan taageerada ugu yaraan 100 xildhibaan. dadaalada xooggan ee ay sameeyeen dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan kuwa ku jira xisbiga talada haya ee wadankaas ayaa loo arkaa inay tahay qorshe sare u soo qaadi kara talaabadani. waa markii ugu horeysay oo qof madow ah uu ka noqonayo wadankaasi ra'iisul wasaare. warka ka daawanaysa Dunida TV waa geynta sidaas